qabahan oo ka mid ahaa xaafadihii ay dagaalada qaraari dhawaan ku dhaxmareen ciidamada taageersan dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogaga ururada Xisbul Islaam iyo Xarakatul Shabaab al-Mujaahidiin oo iyagu ku midaysan dagaalada iyo diidmada dawladda ayaa wali waxa muuqata in la isku hor fadhiyo iyadoo saacad walba la filan karo inuu dib u qarxo dagaal dhaxmara dhinacyada isdiidan ee inta badan ku dirira gudaha xaafadaha iyo wadooyinka magaalada kaas oo qasaaraha ka dhashay inta badan gaara dadka rayidka ee ku siyaarsan xaafadaha qaar inkastoo hadda aanay jirin wax dagaal oo la isaga soo horjeedo aagagan ayaa haddana mararka qaar waxaad maqlaysaa rasaas teel ah oo u muuqata in la is ogeysiinayo in walba uu meeshiisa joogo halkani waa isgoyska Sanca oo ka mid ah meelaha ugu zixmada badan magaalada Muqdisho marka loo eego ganacsiga halkan yiilay iyo iyada oo ahayd marin isku xirayay wadooyin muhiimad u lahaa isu socodka degmooyinka magaalada Muqdisho iminkase waxaas oo dhamay way isbedeleen waxaana kaaga muuqanaya Sanca iyo meelo kale oo la mid ahba inay noqdeen furimo dagaal oo la isku hor fadhiyo kuwaasoo dadkii faraha badnaa ee xaafadaha deganaana ku keentay inay isaga cararaan guryahooda ma muuqato wax rajaa oo ku saabsan in la kala qaato ciidamadan si dadkii barakacay ay dib ugu soo noqdaan xaafadahooda mana jirto kala fogaan dheer oo u dhaxaysa ciidamada soo kala horjeeda iyagoo meelaha qaarkood isku jira waxaan 100 tallaabo dhamayn dhanka kalena waxay maanta duhurnimadii israsaasayn muddo kooban socotay ku dhaxmartay ciidamada dawladda iyo kuwa xooga hubeysan ee ka soo horjeeda agagaarka isgoyska dalka halkaasoo ay hore u joogeen ciidamo taageersan dawladda israsaasayntaasi ayaa sababtay dhimashada hal ruux oo rayid ah iyo dhaawaca mid kale iyadoo intii ay rasaastu socotayna hakad uu ku yimid isu socodkii dadka iyo gawaarida wadadaasi saacado kadib waxaa suurtagal noqotay in wadadu ay dib u furanto kadib markii ay rasaastu istaagtay isgoyska dalka iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska ee dawladda Cabdinuur Muudey al-Cadaala